سكرية واحد كجرتا خدك ستة سواء كلها الله يوري أو العجارة وحوركوا بالنجس الساد دجال كلا شيء ساكا إنه كبلودي هجو جنيه كل شيء يميجا لي أديكوا هذا معصن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم كثرة يا قراء حي روسي عرض الجيل الدجال خاتم وعدان ستة سنوات رمو لما مذكر يا الملك شغال مثل كذا على الدجال كان في كدمركي غير بادية ما لبعض إذا وقال لك صوران ديش قال لك صوران ديش قبل كعين أي سكوت على الدجال كمية من هذا الجنيه يكلش على أنت وده حيث حاضر runtii hadda way degan tahay waxaana la isku sanayaa sida aan wararka dhabta ah ku hayno waxa jira mas'uuliyiin fara badan oo igu booqanaya deegaankaasi sida mas'uuliyiinta koonfurta gudaha deegaanka si ay u bilaabaan waana xaaladda loo dejiyo waxa jira warar soo baxaya oo sheegaya in dadka deegaanka qoomiyadda Madeesha saar laga dilay halka laba ruux oo kalena laga dhaawacay shaqada ku sheegay ay ka dhacday nolosha marka hadda xaaladdu way degan tahay runtiina waxaa la filayaa haddii ay inta fahmaan xaaladda in waana lagu soo dhameeyo waxaa kaloo jira qoraa warar kaloo soo baxaya oo sheegaya in deegaankaas midagle amaanada deegaanka qormada beesha u dhalatay ay ka aad u fara badan oo halkaas yaalin fara badan ay keeneen marka haddaan soo koobo hadalkayga xaaladdu aad bay u degan tahay waxaana lagu wada qabaa in waana lagu soo dhameeyo marba siday noqotana xaaladdu insha allah lagu soo سكري هذا وحنا الله شيء إن حبدي صعطة أو دجال كسعد قري لوجد إن هجو جني يكل شالي يميج أجلي فالتاسي بعد تكوش كسارة كرتا ماذا يبدأ يمكن تعدي بالنسبة إلى لم تمشي يبكي رفعين كبيرة اندلاع بدان كان مجال السلبان على العلم السلبان دار إما تركب الجميع من اعتمادنا خاتمه أي شيء إما يدعي حضاء سلطاتين شنو كلمة عرب كريستاسين السي إن القوات ديشة قرمي بيسوري برساس ربضان عم حضاء بدان كمي جاية أما إذا ما بتسير كورتيش الجبل كعين ومشي أكثر وحا إنتي حباب بنك تأجر على بطير الجاري شنو يمكن شيء بالدنيا كنت تجرى بدان كالمدار عرب حسن تغل مركا dadku waxaan ka shak ama tafakkur ku baabin karnaa haddana baad dhacday markaad xaaladdu ay degan tahay aad baad u mahadsantahay Sakariye aad baad u mahadsantahay waana kula soo xiriiri doonaa wixii